بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم dadweynaha waxaan magaysiinaynaa jaamac maxamed oo xildhibaan ah oo libaha qowdhamo ka sharaxan waxaan leenahay degmada iyo dadweynaha waa nin kaalintiisa buuxinaya waana la yaqaanaa deegaankana waa laga yaqaanaa degmada waa laga yaqaanaa hargeysa waa laga yaqaan waa nin waddanka laga yaqaano oo reer libaha qowdhamo aanay aqoonin waxaan leenahay sida ha la ogaado hanana soo dhaweeyo gacmahana ha la qabto haweeye halka waxaan ku shaacinaynaa haddaanu beesha libax qowdhamanahay xildhibaanka sallaxlay jaamac maxamed baynax oo aanu maanta halkan uga codaynayno degmada sallaxlay oo uu deegaankeeda uu yahay bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waxaanu idinku salaamaynaa salaanta ta ugu qiimaha badan ee ilaahay sheegay baanu idinku salaamaynaa waxa noo raaca maanta waxaanu shaacinaynaa xildhibaanka cusub iyo noo matalaya sallaxley jaamac maxamed oo cabdi waxaanu shaacinaynaa inuu noo matalayo kaamka libax qowdhamo la yidhaahdo inaanu uga iyo dadkaba waa nin la yaqaano golaha deegaanka sallaxley inuu noo galo uu nooga shaaciyo ayaanu shaacinaynaa waxaananu dadka u sheegaynaa waa nin la yaqaano oo halkanna laga yaqaano hargeysana laga yaqaano sallaxleyna laga yaqaano waa nin aqoontiisa iyo kartidiisa iyo odhaahdiisuba ay dadka deeqaysay ku filantay waxa weeye kaasaanu shaacinaynaa oonu u dooranaynaa degmada oo wax nooga qabanaya waxaan maanta halkan deegaanka ka saacinayaa libax qowdhamo xildhibaanka golaha deegaanka caasimadda hargeysa caasimadda sallaxley jaamac caaqil maxamed oo ay beeshu isku raacday iyadoo waayadanba dadku ay iswada haysteen maanta oo lasoo xulay in kartidiisa aqoontiisa waxgaradkiisa buuxin kara kaalinta maanta oonu beeshu halkan isku timi waxaanu shaacinay jaamac inuu kaalinta aanu garanay ka soo baxo isagana dadkiisa hiil iyo hoob ay la garab taagan yihiin aad iyo aad baan u salaamayaa madasha meesha soo jirta mudan iyo marwada aad baan idin salaamayaa bismillaahi raxmaani raxiim maanta waa maalin weyn waa maalin aad u qiimo badan waxaan halkan ku shaacinaynaa xildhibaanka golaha deegaanka u matali doona degmada libax qowdhamo degmada sallaxley oo jaamac haddii ilaahay maxamed baynax oo aan nin kartidiisa iyo aqoontiisa iyo waayaragnimadeedaba leh waxaanu leenahay dhammaan deegaanka reer libax qowdhamo waa dad deegaanku ah waa dad facweyn ku leh qarannimada jamhuuriyadda somalilan marka waa inay cududooda naf iyo maal iyo codba la garab taagnaadaan xildhibaanka u sharaxan golaha deegaanka ee degmada sallaxley bilaahi tawfiiq waxa weeyaan xildhibaanka maanta libax qowdhamo loo dooranayaa waa jaamac maxamed oo cabdi sallaxleyna waxaan doonaynaa degmada inuu taageero ka mid noqdo dee degmooyinka nin qolo waliba deegaan waliba sallaxley nin bay ku darsatay ninkaasaanu ku darsanay bani'aadamka asaasiga waa afar waa amni waa biyo waa caafimaad waa waxbarasho waynu isla arkaynaayo amniga ilaahay baa Soomaaliland buu kala simanna saddexdii kala siiro baan ka degmadeenii iyo kalaba waa arkaysaa wadada ambulance waxa gaariga magaalada ma jiro caafimaadkii kan wuxuu u leeyahay kan kalena u leeyahay dad baa u jooga meesha sallaxley u joogo marka wax soo baxayaan qayb qorridanay waxaan ku dadaali doonaa waxa